Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax gabaldhamadii caawa ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Wararka aan ka helayno xeebta Lido degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay ku waramayaan in gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa lagu weeraray hotel lagu magacaabo Elite oo ku yaala xeebta Lido, kaas oo ah mid si casri ah loo dhisay islamarkaana ay degganaayeen dad shacab ah. Lagu weeraray gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qaraxa kadib ayaa la xaqiijiyey in kooxo hubeysan ay hoteelka halkaasi gudaha ay u galeen, waxaana muddo kooban rasaas ay dhex martay ilaalada hoteelka iyo ciidamadii weerarka ku soo qaaday halkaasi. Wararka kale ayaa waxa ay xaqiijinayaan in dadka ay ku waxyeeloobay ay ku jiraan mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya sida agaasimihii hore ee xiriirka gobollada ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya, iyo sidoo kale waxaa la xaqiijiyey in ay ku waxyeeloobeen saxafiyiin ka tirsan warbaahinta qaranka iyo fanaaniin kale. Weli ma jirto faahfaahin rasmi ah oo laga hayo qaraxaasi, maadaama weli hoteelka ay ka dhex dagaalamayaan kooxihii weerarka ku soo qaaday halkaasi. Muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ma aysan jirin hoteelo la weeraray islamarkaana ay ka dhex dagaalamayaan kooxaha hubeysan oo la aaminsan yahay in ay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Mana jirto weli wax war ah oo ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo xarakada Al-Shabaab oo ku aadan dagaalka iminka ka dhex soconaya hoteelka Elite oo ku yaala xeebta Lido degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir.